Nin baa hadda ka hor u soo dhowaaday gabar ceel biyo ka dhaansanaysa. Markaas buu ku yidhi, walaalay waxaan rabaa inaad wax iiga sheegto dhagarta dumarka. Gabadhii ayaa wadaantii gacanta ku haysay oo biyo ku jiraan ayay jirkeeda ceelka salka u saartay. Kadibna afka qaylo furatay iyadoo leh, waa waray, waa waray, waa waray, war iga soo gaara. Ninkii horgagaxaya ayaa ku yidhi bisinka, walaal aamus, inaan ku dhibaatay kugumaan imaan. Isagoo yaaban ayay wadaantii biyaha ku jireen isku rogtay. Dadkii qayladeeda ku soo baxay ayaa soo dul istaagay gabadha oo jirkeeda biyo badan ay ka da'ayaan. Ninkii oo yaaban oo isleh maanta ayay kuugu daran tahay ayay gabadhu mar qura tiri, ilaah ayaa mahad leh, ceelka ayaan ku dhacay laakiin nasiib wanaag ninkan ayaa ilaahay ii bixiyay oo isoo badbaadiyey. Halkaas ayaa ninkii loogu mahadceliyey misena abaalmarina lagu siiyey. Intay u soo dhowaatay bay ku tiri, walaal barasho wanaagsan, dhagarta dumarka waad baratay soo ma aha. Waxay intaa u raacisay, haddii aad dumarka dhibto cid kaa badbaadin karta ma jirto. Haddii aad wanaajisana waxay kuu noqonaysaa boqortooyo oo cid ku gaaraysa ma jirto. Ee ogow, dhagarta dumarka way dhinacyo badan tahay ayay gabadhaasi ugu jawaabtay ninkii. Taasi oo fajiciso ku noqotay ninkaasi. Haddaba waxaa laga ogaan karaa in dumarku ay wajiye badan yihiin. Haddii ay damcaan inay ku dhagraanna aadan ka badbaadi karin. Haddii ay damcaan inay kuna wanaajiyaanna wanaag iyo farxad ay ku siin karaan. Waxaa sheekadan kooban idinla socodsiinaya wariyaha arrimaha bulshada Gacal Ayman.